السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. Waa habeenimo khamiisa jimca ay soo galayso taariikhduna ay tahay 14 bisha May sanadka 2026. Haddaba barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay xaaladda gobolka Bariga Dhexe. Warbixinada aan caawa barnaamijkeedii kugu hayo waxaa ka mid ah Iran oo caawa hawlgelisay baddana gelisay hub ay kala timid waqooyiga Kuuriya. Jagaxirka hub ay ka keensatay oo loogu talagalay arinta marin biyoodka Hormuz waa la isugu yimid. Xaaladdu cirka ay maraysaa. Mareykanka waa la sugayaa. haddaba akhbaar ku saabsan sheekada cajiibka barnaamijkan idinku haya Trump oo sheegay Shiinuhu inay ka aqbaleen inaanay hub siinin Iran laakiin inta uu joogay Shiinaha ayaa shirkado Shiinaysa oo hubka sameeya waxa ay durbaba heshiis la galeen oo ay hub siinayaan Iran sheeka iyadana cajiiba oo Trump ka qabsatay Shiinaha ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa idinku haynaa wixii kale warar soo kordhana inta aan barnaamijka ku jirno waan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. dhammaan bulshada waxaa la socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halka ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka, dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya. haddaba bulshada meel kasta aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee aduunkuna ma tagtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay waa barnaamijkeenii habeenimo khamiisa oo jimca ay soo galayso taariikhduna ay tahay 14 May. wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka idinku haynaa. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa sheeko cajiiba oo ku saabsan Iran oo caawa hawlgelisay hub cajiiba oo halis badan oo ay ka keensatay waqooyiga Kuuriya. hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un wiilka dhalinyarada ah jagaxirka ayaa hubs u keenay la leeyahay Iran. hubkaas ayaa la hawlgeliyay waxa loogu talagalay Hormuz waardiyaha awal kaneeco kuwa la yiraahdo oo dooma yaryara iyo waxaas ciidanka ilaalada kacaanka Iran isticmaali jireen. hadda waxa la keenay gujisyo yaryar. gujis waxa la yiraahdaa maraakiibta badda gunteeda ku socota. gujisyadaas oo tiro badan ayaa badda lagu daadinaya. waxay leeyihiin bahalo ku rakiban iskaga qarinayaan wixii ay ku arki lahaayeen maraakiibta. ma fahmi karaan way iska daboolayaan. haddaba marka sheekadaas soo baxday oo la leeyahay Hormuz nin walba waxbuu ku tijaabsanaya. haddana jagaxirka keensaday alaabtaas bal Mareykanka ku tijaabiyuu leeyahay. aniga waxaan isku haynaa gacanka Kuuriya ayaan isku heli doonaa annaga iyo macalinka weyn marka alaabtan ii tijaabiye. gujisyadaas marka hadda warbaahintu ka hadlaysa in maaragtay loogu talagalay Hormuz. marka waxa leeyahay waa gujis technology-giisu sareeyo waxa loogu talagalay leeyahay warbixinada qaar harkaha internetka ee badda daadsan inuu ka takhaluso. muhiimadda ugu weyn alaabtaas la cunaa internet waa ku daayay
adduunkii oo dhan kala xirmaaye hal kala tago waay markaa salaaniya kala taga meesha ka dhex tootaa lagu leeyahay haddaba markaan aragno majallada weyn ama wargeyska weyn ee arrimaha militariga ka hadlaya yiraahdo mawqic ad-difaac al-arabi yiraahdaa waxa uu ciwaan uga dhigay Iran waxa ay hadda hawlgelisay gujisyo weerar ah oo laga keenay Kuuriyada Waqooyi si ay markaa ay ugu taageerto hawlgallada Iran ay ka wado marinbiyoodka Hormuz haddaba marka warbixinta way sii socotay waxa leeyahay gujisyadan waxa loogu talagalay marinbiyoodka Hormuz waana gujisyo awoodoodu ay aad u sareyso sida la leeyahay marka waxaana hadda isticmaalaya ciidamada badda ee Iran marka waxa leeyahay qaar kamid ah gujisyadan ayaa hadda ka hor ayaa waxa la siiyay Iran marka maadaama hawlgalla iyo waxba ay sameyn waayeen ama technology-goodu qadiim ahaa hadda laakiin alaabtan waxaa loogu talagalay Hormuz la leeyahay marka maxay ku soo aadaysaa sheekada marka waxay ku soo aadaysaa xilli Israa'iil warbaahinteedu ay leeyihiin dagaalka lagu laabana maalmaha soo socda sabtida ama axadda midkood waxa dhici karta Trump inuu dagaalka ku laabto marka uu ka soo laabto Shiinaha awalba wuxuu la sugayay Shiinaha safarkiis markuu soo laabto amarka usbixina marka dagaal hadii la soo laabto alaabtan iyo kuwa kale iyo sheeko badan marka aad dadka sugaysaa leeyahay marka warkaas isaguna wararka cusub oo kamid yahay wararka kale ee caawa soo kordhay Trump oo jooga Shiinaha wuxuu yiri Shiinihii waa la hadlay madaxdiisa la hadlay waxa weydiisanay kulaha inaysan Iran hubsiinin wayna naga ogolaadeen marka maxaa keenay inuu Shiinaha hub hasiinina uu dhaho Iran maartay Mareykanka ninkan Trump uu yiraahdo Shiino hub hasiinin Iran maxaa keenay waxa keenay wargeys weyn oo Mareykanka laga leeyahay ayaa wuxuu daabacay oo New York Times la leeyahay shirkado Chinese oo hubka ka shaqeeya in ay gacan saddexaad hubka u marsiinayaan Iran oo hub u wadaan hubna kalena ay geeyeen waxa looga shakisayaa Pakistan dhankeeda in lagu soo wareejinayo halka maartay hubka laga soo gelinayo Pakistan iyo Chinese iyo aagaasiyo inta la soo geliyo kadibna dhag meeshaan laga soo gelinayo marka ninkii marka aflabadii u qeyliyay Trump asagoo China jooga wuxuu leeyahay hub aan lagu siinina Iran aasiya ka akhrisanay nin mudantiisa u sheegay asagii haddaba marka aradituso marka wararka sheekooyinka laga qoray haddaba warbixinta waxay leedahay Trump ayaa wuxuu yiri madaxweynaha Shiinaha wuxuu ballan nooga qaaday inuusan u diri doonin agab military Iran macnaha wuxuu leeyahay madaxweynaha marka la kulmay Shiinaha arkaan ka codsanay uuna naga aqbalay inuusan wax huba u diraynin Iran marka sheekaas marka maxaa keenay isla warbixinada ayaan ditus telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay New York Times qortay saacada ka hor shirkadaha Shiinaha inay qorsheynayaan inay hub ka iibiyaan Iran iyagoo dhexdhexaadiyaasha u marinayo meel kale oo loo marinaa marka odaga uu baryotama marka warhub har nagu siinin ma shaqeynaysa waxa shaqeynaya bal meesha dib walba dadtiisu fiirsanaya marka hawshaas wararkaasu waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee soo kordhay saacadii soo dhaaf dhanka kalena Imaaraadka ayaa waxay cambaareeyeen sida la leeyahay markabkii Hindiya ee barnaamijkii hore aan ku soo qaadanay ee la weeraray argagixisa weerartay kana weerartay yaa weeraray markabku ma la sheegay Hindiyana ma sheegayso Imaaraad ma sheegay markabka yaa weeraray markabka oo la weeraray ma Iran weeraray ma Mareykanka weeraray ma yaa weeraray waa laga aamusanay afka xaran markabkaas weerarkiisu waa cambaareynayna Hindiya waxa leedahay markabkayga saasalayaan markabka yaa taabtay marka sheekada iyaduna way isku qasatay qadar xayeysiisha kadib wixii warar soo kordhay ayaynu sii wadi doonaa oo aan idin soo gudbinaynaa barnaamijku waa kii saddexaad ee habeennimo oo marka noo socda
ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markasu daaru taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah maadooyinka aad ka baran karto waxa kamid ah qur-aanka kariimka higaada luqada carabiga iyo culumta shareecada isdiiwaangelintu way socotaa fadlan horugaad wixii faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadi dugsiga markasu daaru taqwa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo daga daawanaysaa kusoo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa khamiis jimca soo galayso wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay aynu halkan idinkaga soo gudbinaynaa haddaba maxaa soo kordhay intaynu barnaamijka ku jirnay marka waxaa soo kordhay jiradda la yidhaahdo Washington Post ayaa waxay qoraysaa warbixin sirdoon oo ay leedahay warbixinada sirdoonka Mareykanku waxay sheegayaan in ay heshay Shiinuhu uu helay awood sare iyo horumar weyn inuu ka helay dagaalkii Mareykanka uu la galay Iran xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay militariga xagga iclaamka ama warfaafinta tafawuq kabiir uu sameeyay horumar weyn uu ka sameeyay Shiina Mareykankuna waa dabcay hoos u dhacay maxaa marka saas loo leeyahay sirdoonku maxay sidaa u leeyahay marka dadka wax falaqeynaya waxay leeyihiin Mareykanka awoodiisa wuxuu isugu geeyay Iran waxna waa ka qaadi waayay halka marka waa ku fashilmay midda kale tafawuqa horumarka Shiinaha maxaa keenay hubkii Shiineeska ayaa lagu jabiyay Mareykanka waxa la isticmaalaa inta badan waa hubka Ruushka iyo Shiinaha marka hubkiisa uu tijaabsaday waa ku guuleystay Mareykankii marka halka looga adkaaday dhaqaalihii hoos u dhacay Mareykanka maalinkii intaasoo milyan oo dollar ku baxaysa Shiina dagaal kuma jiro waxba iska dhisanayaa hawshiisa wata iclaamkii Shiinaha kor loo qaadaya waxa leeyahay Shiinuhu wuxuu yiri markabkeega yaa la taabanin Mareykankii marka meeshaas xoogaa hoos u dhac weyn ku dhacay marka waxa qoraysa jiradda la yiraahdo Washington Post ayaa sheekada qoraysa wararkaas ayaa ugu waaweynaa caawa barnaamijka